naaseen u tahay ee ani arsideed maalmood ay soo caydo wir hadday naag tahay haddaad u hiilinaysa soo walba qol adna qol waa qabtaa hinda adna qolaan qabaahe niqaa baratay laakiin qabiilkan oo naaska wallahi waa cajiib naas baa meel la taabto ugu jilicsan maamahda qorta Soomaaliya dhageyso 1300 baatiin meel la taabto naas baa u jilicsan waa mahmah cusub oo hadda waa update gareys adduunka waxaan ku maamahda meel ku qorta meel la taabto naas baa u jilicsan maada dumarka igu yiraahdo xurmay soo gaabi baan maanta laga bilaabo isticmaalaya wallahi waa maamahdi waa boqorto qolka ugu horeeya anigu waa boqorto qolka ugu horeeya baa ku bilaabi tii ilaati adash wallahi billahi wax la taabto naas u soo qarasho kira naas ma balay ku naasta iga tagad sac iyo madaxweyn naas oo fakiray adiga dabool baan rabnaa inaan ku saarno degan dabool ma saari karayno marka degan iyo inantaa kala ma aniga waxaan nawa iska day aniga xurmo waxaan aniga gabadhan ciso oo walaashay oo waxaan ku dhahay ixtiraamha baba ii sheegtay mar waxaas waa ka gudbay والله يكون فرنقيني حالنا جوجتي بالي وحقوقي توم برا عليهم دوام فدي أنا وحبا كفهمي واي ما هب مدماشي هذا هيد ناق عن شيء كذا فهم واي خطر سيدة تبع حلا يوردن ملك UCC إن أنت ونسور دقيستي وقبل ده هسه waxay tiri faan barnaamij dumaashideed baan hayo ninka igu dirta way dishay oo cilmi iga qaatay dhahaysa على iyada aan taasan dhageysani dhowr jeer waa dhageystay gaar saxal way oo ismurugay naga keento wallahi walaalkay bay qabeen nafta ii keento waan joogay anu dhagteeda meel walba waan yara geynay halka qoraalkan sida ayaan taas ay ku quslaysan ugu soo yara qusquslayaan qabiilka naas ka fogaada please ka fogaada ma garateen fiiriyaad male falanqada marka la joogo ama marka wax la dhageysanayo halka hoose wax lagu qorqorayo anagu sidaa taa kaba dheer sidata baanu isha dhinacanu yar dhuujinayna dhinac kale dhuujinayna daaqadaha furta walaalo daaqadaha furta inda waxane hadda luqtaadana taawo garabkaaga taawo naaskaaga taawo ka jilacsan naaskiye Shakira saas waay saas u tahay faadan badan kuna ku sheegay taaga qoqayaan daawaan dagay anigu waa naas u tahay naas واسكين اسكت تاب صوت اسكت ما دي كرتو يا تاب يا هذا فيري هذا فيري هذا نيكو قبا غوري كو جوجو ما دي كرتا ناس كيغا تاوني غير ما تاون ناس العظيم ناس سميرة سو دغو سميرة ورلعاب باكوي سميرة ورلعاب باكوي كانوا نسميرة بل اسكا تاغي waxaan ku soo koobaa waxay tahay wala ku siinaya degane waad ku noqonaysaa soo hadhamaysa intaan ay naga tagtay sug salaamada kulligiin la deganay shalna waa soo qaboway soo doofaara tahay adiga waa laga fariisan doonaa arintaasna waa la gelayaa deganay isdeji soo laabo Shakira midaan ku leeyahay adigane bala xabal ugu sheegay intisaaray xagee jirtay ima soo waa ogaa laakiin shalay hada toobi kale ay deganay intisaaray kuma hadlaynaa deganay inaad yersug laakiin iska daa Shakira hal midaan ku hor dadkii dhan adiga ku qabsadeen sideeda bilaadana mar walba dadku waxay qabsadaan qofka u ganta jiracsan oo bini'aadanku qabsan karaan waligeedna waxa la qabsadaa oo la afjiga qofka la qabsan karo aniga laba gabdhood isku wadan joognaatihiin waan ii simantihiin laba gabadhaasna waan la ooynaa waana dhib haysta adigoo laftirkaaga waad la ooysaayo ilaahay ilmaheeda u soo cesho faadumo laakiin waxyaabaha qaarkood waxyaaba laga fiicay arrinka soo laalaabta arrintan gabadhan waa isqabateen waan joognay social media waan wada arkaynay waana la kala baxay fahmaysaa inay maanta soo laabatana waa qalad in maanta arrintaas soo laabatana wallahi waa qalad Shakira midaan ku leeyahay horta ilaahay Shakira ilmaha siiyo ilaahay waxba war ma noqonaysa taas qofkii qaldan Soomaalidu u jeedaa qofkii dadka kale qaban kara qofka kalena ha yiraahdo gabadha ka dhamaaw maxaa ku haysataa waa sax Shakira adigana sax lagu cishdo waa sax ilmaha soo horta ilaahay asaga caruurta bixiya la'allaha inay qayr ku tahay kuwii la kugu noqon lahaay ku dil lahaa balay noqday naagaha ilmaha haysta laftirkooda inaad qaar baa waxba aan maarta ku hayn marka horta xagga la iska dhigo ilaahay umadiisa u siman tahay aakhiro la isku macdaabayo maxaa la yiraahdaa maxaa ilmu u dhal weysba qof walba shakhsiyadiisa iyo bini'aadanimadiisa iyo ilaahay jannaana wada ku soo marayaan ku soco ha markii inaad ilmaha ilaahay horta wixii qayr ah ilaahay kugu talagal ilaahay ku siiyo ilaahayna jannadii ha ku geeyo wanaagaagan qof wanaag lagu bartaa tahay adoo afkaaga xaaraan ka socoto qofku aragtay ma jirto weliga kulamaana kulmin anuu kuleeytaba ma fahmaysaa laakiin qaybka ilaahay ba og weliga kulamaana kulmin adoo xumaan meeshaada laga sheegayo ha fogaasho iyo sokeeyo iyo midna adoo ka hadlaya weliga kumaana arag qof iska baashaala halka iska qaraaxaysta gabdhaha iskala sheekaystaa tahay ma fahmaysaa wax xumaana laguma arag
laakiin gabadha waa isqabateen arrintu waxaa ceebab seel isku qabtay qaladba maba ahaba waa la isqaban karaa laakiin soo laalaabashada anigu waxaan la yaabay ila tahay shalay markaan iyo daraad dhageystay laga hadlaa sanad kastay ka hadashaa qalbi iyo sanad ilaahay dhegeyso keeno waa wax soo laablaabta gabadhaas hadda meeshaan way ka maqan tahay yacni qof maqanna wax laga yirahda maba jirto shakiiroy waa lagu wada ceshaday wada ceshashadaas lagu ceshadani u garan positive inay tahay ma fahmaysaa waayo qof dadka dhan ka laalaadsan karaan oo dhihi karaan naya aamus wadaagaa ku ceshanay afkaaga xiro bax qof walba ku yidhaahdo ogow dadka agtooda inaad ka leedahay qaymo in ay tahay isku hubaal ay tahay ma fahmaysaa waayo qofa isku kaa hubin kuma dhahaya naya waad ogtoo laba qofood markaad u timaado ishaysata ama isdiriraysa ka ku-xiga ama ka aad aqoonta u leedahay ama kaad isku hubtaad ceshataa isagoo laga gardaraya intaad gacanta qabto jiidaad afka ka bogan fataa marka mogti صح waayo cesashada laftirkeeda waxay tahay yacni kalsoonida nooc ka mid ah waa in aad xurmo leedahay istiil dadkaa ku ceshanaya waa dad xurmo ku haya wallaahi qofaan xurmo ku hayn inuuna ku ceshanayn deganay maxaa la yidhahdaa naagta la yihahdaa shakiiroy ilaahayna adeer khayr ha ku waafajiyo samraana sad hela yacni in adeer macaan ka laandheeray ilaahay dartii wax lagu daayaana maaragtay wax walba ka wanaagsan gabadhaana fariin koley meeshan way dhegeysan doontaa waxaan in adeer macaan wax soo laalaabta bilow ilaa hadda way fadhidaa in adeer macaan wax soo laalaabta ma qurux badna gabdha noo simanaa tihiin gabdhahan ceesho milix ayaa ahaydeen degan aniga waa in adeertay waxaana iskuma darsano ma fahmaysaa laakiin way iiga dhowdahay ayada waayo wadad isyaqaano wadsabad iska oo as ayagu isgalay marka maalin walba inta la isgalo la sheekaysto in haddana gadaal isaga soo jiirayo waa sheeko dumar waa wax laga fiican yahay waxaan dhihi lahaa marka gabadha in adeertay degan maamaa cusub bay keentay walaal waa arkay taas degan waxay tiri meel la taabta naas baa u jilicsan aad iyo aad kiira waxay tiri garbihiina taabta waan taabtay waxay tiri meel iska taabta meel la taabta waa maamaa cusub weeye waa u jilicsanaaday qofka ismaagaan dhan anuu ma igu soo socon laligu waan ilaahay way buurantay hadda iscaatays baan bilaabay kaniin baa cuna hadda laysku caatay dhageyso shakiiroy ma jilacsanid shakiiroy ma jilacsanid laakiin jileecaa kala noocya duwan ma fahmaysaa qofku markuu akhlaaq iyo edab leeyahay uu degan yahay oo waxyaaba badan ka laandheeray oo iska indhatira wuu jilacsan yahay saara inaad arshaanku saasay noqon kartaa ee ma aha soo bax walaal macaani insar waad baadsanta waa soo gaabay insaar mi maqlaa baayo hooyaday oo xajka joogtaan ku dhahay oo xajka joogto baan habeen u xariiriyey fiiriyaa waxaan inaga daya hadda mawduucyadaas waan dhegeysanaya waxaas markaa qolkaa ka sheegaysa deganay arrintaas deganay adiguna dhaarta iska daa ilmaha gabadhaasna in adeer ha ka hadlin ilmaad haysataa deganay in adeertayaan ahay ha ka hadlin gabadhaas laandheere laakiin qofkii ku soo gala adiga degan ahaan afka kula soo gala af waad leedahay iska celi anagu kuma lihin qofku soo maagay u tu oo ma kulhi ma fahmaysaa laakiin caruurteeda afareeda kama hadli kartid أنت شكيرة ما الناس هاي أنا واسكي علنا انتصار نادر انتصار نادر وانسي دقيقة قيرة إذن دافع شكيرة أدينا قيرة قوانا وحسكي علي ديس وين نادرتي أنا يصير شكيرة بس دبران ولا الله بعدين شكيرة قبيل كي جين قدي قنصر كمان لاني قولي دكت وين نادرتي ناس فيه ما كنت ضد بقى هذا مركض ما كنت مود قبل حيرقل حرمه وعلي متى جيت ما وحن رابع إنا وحكرا كفلا قينا متى جيت السوق لما دقيقة قف كيف هالسكن هذا ولا سود ومقدار هالسكن سوق شكيرة ما تروحي ما تروحي قار ولا عين مرة بدوناك وضنو عن ما عرفت وأنا هبلان ربع لكن هبلاك رورتها يقهريان هدي ون من رسينا يا نو ون من الثانية بكل وقت لا حاجة مو أرونا أنا أجري قبل ما تحرمه وعلي لكن يقام العقل مرة بتده وين الدقالة دي قلت مرة بتده حربتنا ما يقعدته يقفل السوق inaad taajirtid ma rabtide horta mid bay gabdho ku soo celceliyeen gabdhaha anaga shakiiro qabsadana waa anigii habli kare halkaa joogay sababta u qabsanayna waa inaan walaashay wanaaggaan la jecelnahay qofka markaad wanaagga la jeceshahay ad wanaag ku baratay ma jeclid inuu caytamo ama uu hadlo sooma gabdhaha le awlaada ilaahay baa hayo oo awlaad ilaahay ku siiyo ducada qofna ma diido ducada qaybka ilaahay qaybkana waa aqbalaa xaadirkana waa aqbalaa intaasoo qof oo aamin yidhi ilaahay ha ku caafiyo qof layidhi baa ilaahay carabkiisa qof ku caafiya hablaha le maxaa gabadha kale loogu tegi waaya ha loo tegayaa gabdhihii garanaya sida rooda cawiloo kale waxay tii telefoonkeeda waan hayaa waan wacaya waan u tegayaa islaax iyo wanaag baa la wadaa ilaahay subxaana wa tacaalana wuxuu yidhi islaaxa iyo wanaagga ka shaqeeya marka haddii islaax iyo wanaagga aan ka shaqaynaynin khalad aad u arkaysaan taas idinka rayigina weeyaan cayda
iyo aflagaadada iyo afxumada iyo jaafinana waa jaahilnimo aniga agtayda qofka caytama jaahil buu ka yahay qof daciifa buu ka yahay qof aan akhlaaq lahayn buu ka yahay qof xun buu ka yahay ma fahantay marka haddii aad doonay hablaha qaar komentaaga soo qoraya ama meelaha odhanaya haddaad doonaysaan in sharafnimadii iyo karaamadii dumarka Soomaaliyeed ay lahaayeen maan caayin anu wallahi waan ogay maan caytamin laakiin haddii la doonayo inay sii socoto oo sharaf iyo karaamnimadii dumarka Soomaaliyeed iyo qiimihi aynu lahayn oo aynu maaragtay maalin walba dhageysano habla Soomaaliyeed oo iscaayo ama isku dhaga hadlaya ama maaragtay erey isku duraya wax inoo wanaagsan inaga akhriya adduunkeena maaha laakiin aynu ka dhex shaqeyno wanaaga cayduna waa jaahilnimo waxaasoo dhan markaa intaasaan odhanaya walaalo Shakiire haye waan muudkan kuu geliyay haddaba hawl baan qabsanayaa haddaad tiri joog gabadhan ay ugu qoran tahay no faceay kelmadan aad soo qorayso qaxbooyin walaalo ceeb weeye qofku markuu qaxbiyo adiga markhaati kaaga ma dhigayo aday dambi kugu tahay qiyaamaha lagu weydiinayaa ma fiicna cayda iyo aflagaadada ma fiicna anu ma jecel qofka iska baloogo isan waxba igu sameeynin maanta hore baan ku jira caybaad wadaa ilaahay ku abuuray ka cabso waxaan war uma haysato wuxuu dhacay ma ogid wax ma ogid habraa haddaa tahay habar way ku dhashay walaal hooyadaaba habara na waxaad samaysaa marka intaas ku xisho dadka iska daa ma fahantay no face waxaad ugu qortay waa doqoniimo because magacaagaad ku qoran lahayd haddaad qof ixtiraam la tahay magacaagaad ku qoran lahayd gabadhaas maanta qofka hadla way caayaysaa qofka hadla cayb u soo qoraysaa qofka hadla cayb waa iyada magac kala wadataa maya bay waa gabadha shaqaalaha oo guri ugu shaqeyso habaryar anaa ka saay gabadh guri ugu shaqeyso waa anaa ka saay waa la bloogay hadda naya degan inaga amuswan sugaa lagaa soo horeegay wax yar naciima soo dhawo maxaa ku ayaa la yiri Shakiiraay aan horta salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hablaha Shakiiraay qurux badan ay adaan kuu soo koray waan ku dhaafi waayey waan ku salaamay kowdeh faraxsanidaadana jeclahay qosolkaaga kowdeh ma jecli inaan ku arko adoo ama murugoonaya ama maad aragtay xurmaana tiri kolley waxaan oran lahaa qof caytama waa qof daciifa Shakiiraay dantaada qof taqaanaa tahay hore u soco farxadaada iyo quruxdaada iyo qosolkaagaanu jecelnaa xabiibti waana ku salaamay xurmaadna waan ku salaamay xabiibti asalaamu calaykum skincare waa ku salaam walaashay macaani haye naya nimco maxaa anaga noo salaamooda ma kugu kaadinaa macnaha habadhe siiham kuma arkeen hool baa igu furanayaa maan siiham habar yaray waan ku salaamay quruxdaydii hoyga uduga ma seexata Shakiira may maqashaa warama bal xaaladinayga warama Shakiiro maanta wuu faysal kula kulanayba meesha ku arkaynaa walaal macaan waxaa la yidhi dheriga maxaa karka ka keena ay Soomaalidu yiraahdaan waanan ognahay inay cara kaa keentay habar gabadhan hoyga uduga ku qoratay uduga ma iga iibiso ku soco walaalaha dhamaysto uduga inoo dambeeya والله بنان كانوا صاير بحي بريك بان صاير بحي شغال كجرا لكن وحن كالا يا هكين كرواي لبد كلمدودن جعل هاي سدا walaaltinimada iyo walaaltinimada wanaagsan ee Shakiiraay kugu bartay adiga iyo ugaaso wallahi hablo badan oo maasha Allah aaladan ka bartay oo muxtaramiin ayaa jira oo kamid tahay adigu Shakiiraay waxa weeyaan Shakiiraay Soomaalidu waxay ku leedahay khasiis xoolaha gabadh la siiya marka qofka bini'aadamkii hadduu ku gardarayso waa run maxay ahayd mahmaa kale iyaduna jirto ah ninaan maxay ahayd niman tarin jiran hadduu tari niman tarin ninaan sharci kaa reeb shantaada kaa reebto ixsaasa something like that anyway waxaan ku odhan lahaa walaal macaan mahmaada naasna waad qorat sooma may naga daa naasaskiyo balaayo anyway anigu laba kelmadoodun baan ku odhanayaa hadalkan waxa ugu wanaagsan maqalla wadal ma fahamtay adoo carabiyad baa too fahmaysaa maxay ahayday waxa weeyaan walaal macaan ka laandheeree baan ku odhan lahaa waxaas ma aragtay waxay yidhaahdaan nin maxay ahayday carab oo shaacira wuxuu yidhi alkilaabu tanbaxu walqaafilatu tasiir ma fahamtay ayadu way ciyaysaa yaa qaafiladuna waxa weeyaan berigii hore marka safarkii waxa loo baxayo qaafiladay awr iyo waxaas ku bixi jireen marka ayadu way ciyaysaa qaafilada safarka u socotayna way soconaysaa uma joojinayso weeyaan waxa weeyaan adigu goolkaaga wado
waxa weeyaan adduunkan inta la joogaa walaal waa very short ka odhan maayo iska celi no qabri yaroo 2 mitir la sugay qof walbana talabaad nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu yiri المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف marka qofka qawigina waa qofka naftiisa ka adag ma fahamtay naftaada inaad ka adkaato waa wax adag runtii ma fahamtay because shaydaan baa inagu lamaan shaydaan baana mataqaana qofka bilaadanka naagtan maxay ka daba socotaa horta naagtan madashaada la xugu dhigtid baad soranaysaa moogta ya laakiin wallaahi waxaan ku oran lahaa walaal macaan kalaan dheere arsaaqadii awlaadana waxaan ilaahay baa ku shaqo leh maxay hayday ilaahay baana og siduu khayrku ku jira runtii laakiin kolley waan ku dareemayaa because storygaagaasoo kale anigu soo maray maanta dhan walaal awlaad baan haystaa adduunkuna mataqaanaa haa sidan ma ahaanayo for 10 years baan ilma sugayay haddana ilaahay siiyey marka ilaahay meesha qofka kugu qoray iyo maxay hayday xilligu kuu qoray ayuu keenayaa marka walaalo xafid allah ku daayo walaal haa marka adigana walaashay macaan dadkan u soo waarun laakiin marka inagu nahay qalbiga dad oo mutaqaafilanay inagu qof walba waxaan u bixinaynaa Soomaaliyeed wala qofkii curiyaan waxaan oranaa cheese kii waxaan oranaa ilmaha gabla qofkii illa awar midba dadka isku caynayna ciladaha waa because mujtamaca waxaan u nahay ha ku yartahay aqoonta maadiga iyo aqoonta diiniga hadda u fiirso Soomaalida wax ka quraan barasho og ma jirto laakiin كمثل الحمار سند والعالم iyaga qaal quraanka Soomaaliya laakiin dhageyso mid baan walaal ku sheegayaa waxa weeyaan hadaan quraankan iyo waxaan xafiday ama shay waxa tahay كمثل الحمار يحمل أسفارا ما فهمتي dameer yani wax dul saaran yihiin oo ogay wax dul saaran ayaa tahay marka waxa weeyaan maxay haday adduunkan waa qofkii maanta kula jooga brito la meeyda ma fahamtay marka walaal kalaan dheere baan ku oran lahaa hore u soco insha Allah guuliyo gobonimo luuqana wax badan baan kaaga sheegay walaalo ma aragtay ku anfacaya insha Allah hay qoliyo aad baan dii salaamay walaal الله يعطيك العافية حبيبة قلبي الله يعافيك حبيبتي والله أنا wax badan ba ilaahay darti ku daayay alxamdulillah والله mar walba waxaan dhahaa ilaahay darti wax biska shukri soo dhaw shukri cabdi السلام عليكم وإلى السلام دمانتين قبلها ماشي صار intaan dhihi lahaa bishakiiro walaalo macaan badanaa ku dhaheen 3 sano ka hor amaleyna arintaan oo kale markay jirtay aad iga qaadatay oo ina xaliyay maantana soo ilaahay ilo ogyahay inta leen ka soo dhacay aniga waa aragti baryahan baalkan saas uma isticmaalo haddana buuqa waa u jeedaa gabdho sharaf leh aad tihiin walaalayaalow ilaahay dartiisa la isku deeyo maanta dhanaa la hadlaya hadal macaantiisa shakiiro ewelna waad ii qabsoontay haddana walaalo kala u qabsoontay anna inaadna war iga diideyno waa ogahay walaashay deganna ayadana inaan la hadlaan rabaa gabadha kalena anaa ilaahay dartiis ula hadlaayo dad waaweynaa nahay qof nimco ugu faani karta ma jirto shalaba way kaa diiday ha isku ceebeen qof nimco ugu faani karta ma jirto abaayo qof walbay tahay qof la dhalata caafimaadka ma jirto qof xoolo la dhalata ma jirto qof ubad la dhalata ma jirto qof walba ilaahay wuxuu sii karaa wuuna ka cesho karaa marka anigu muhiimadda aan dhahayo waxay tahay qof walbo ilaahay dartiis qofta kale ha ku dhaafo qof walbo ilaahay dartiis qofta kale iyo waxba ku dulmin carabka maanta waa qoyantahay la isku caynayo biri woo qalalaa maanta haddaan meeshaan intaan soo karo shakiiro qoftaan rabe iska caay waa dembi aniga ii yaalo ma fahmaysaa qof walbana dembigiisa wuu u qoranya marka walaalayaalow dad waaweyn ilmar yaryaraa dadka fiirsanayo qof walba ilaahay dartiis ha ku sabro qofkii iida la dulmiyo oo iida ilaahay dartiisa ku harto iida ilaahay nimco uga bedelaa walaashay deganna inay maqlaysaan jeclahay adi shakiir waa ku soo wacaa taleefankaaga waan bahaayaa deganay abaayo adigana debkaan ilaahay dartiis ku dimi wixii dhaca way dhaceen abaayo stress ma fiicno dagaal ma fiicno adduunyadan iidaaba meel u socoto alla dartiis la isku daayaan wallahi shaqadii intaasaan ku dhigata way ku maqashay inta wacay baan ku iska daa inta aniga isoo badgelin igu soo bedelin booska gabadhan igu bedelin maqraatiga ka degan afkeeda ka sheegaysay intaas qof maqraatiga ka inta aniga igu bedelin booska isoo caayin iyada wallahi cadiim inta qolka u kara waxaan ku deganay iska daa baan ku walaalo
faraha iskaga qaad baan ku shal saaxiib ba ahaydeen hadda isku dhacdeen iska daa baan ku walaal faraha iskaga qaad wallahi waa intaan idin dhahaayo wallaahi oo bilaahi oo tallaahi aan faadumana dhahaa qof aan u eexanayo ma jirto kulligeen garbahaygaa tihiin kulligeen gabdha aan barto walaalahayga ahaa tihiin wanaagaan idiin wada haaya ilaahay dartiis ha loo daayo deganay in adeer haddaa imaqlayso muudka ka soo bax anaa ku qabsaday walaashaa ahaa adba waa iqabsa laheede qalbiga la wajiilnimo ma fiicno munaafiqnimo ma fiicno naagta waa inay tiktok keenta ma deenaayo marka ma rabi balan bee inaan kaa qaado waa mahadsanta laakiin waa kaa qabaa naas ma ihi maya fiir maxaa jeceshaa in lagu xaliyo taasa baay deganay dagaal inoo ayadoo la jiida in social media la ii keeno maya naas mi waa edab tarantahay dawacaynaas dagaal deganaya aniga naas miina ay adaa naasa gabartaana horaha usinaas maahane dhegeyso deganay maanta dhamaan ka aamusnaan ayaa degani oo waxaa ixtiraamaya dad muxtaramiina qolka dad muxtaramiina qolka inala saaranaya oo agteeda qiimo ku leh way iska kaa celin lahaa deganay haygu odhanaya naas baa tahay anigu cayda aanan garanin iyo wax la bursaday wax la dila ma qaano maaga ila qaadan whatsappka maaga ila qaadan fiir waxa ku sheegaysa maya anigu wallahi de aniga fiir waxaan ku dhahay ku sheegay naas taa anigu iska celin kara laakiin aniga isku meel nama degan anigu waxaan ku dhahay iikaad waxaan ku dhahay ayba garanay walaa laakiin naas mihi inaan iska celin karo aniga aan lafka ka shaqeyn lahaan iyadu way ogtahay laakiin waxaan ku dhahay ku sheegay naas taa ku sheegay markii dhageyso sababtan ku dhahay ku sheegaa anigu 8 maalmood ima hadal hayn karto adigana cunugii aan uurka galay ay marka ishaysateen 2 sano kadib cunugii aan dhalay 5 jir waay had saas ma ogtaadi 5 sano ii jiraa marka ishaysateen ya wallahi 2 sano kadib aan ku dhalay cunugii aan dhalay 5 jir waay okay dadkan kun iyo xoogoo ku fiirsanayso hadda bish 7aad ay ku deynay 7aad waxa ka dhiman 2 bil ka dhiman way ku deynay 8 9 10 11 12 anigu asna qaana mogtahay hora isugu dambaysa deganay gabdhahan in adi snapchat ka faadan bromers waxaad tiraahdaa waxaad fiirsa abaa subax ilaahay keena ku kala amaad marka tiktok waxay ka weysa ku kala abaa qalbiye aad shakiiray shushu abaa waa mahadsan tahay deganay shushu gabadh ixtiraam badan wallahi abaa waxay دقيقة والله في دقيقة والله شو احترام والله قبل احترام بدن شو قناعي دقيقة صرت شو يا أبايو ولا شيء باتا وأنا كنت على هاي وقتها يعني هذه ما بدن قصر كاجا وحيسة ما فهمت قلبي شكير وعشانينا ولا شكير ضد كنا عشانايو أنا حتى شكير فيري هذا حتى وكو عشانا because ويلي أنا وأنت أصلا إسلا قصلي جرن ويلي ما كان معش وينين دب كان معش وين اسكو مدعي ولا تنم أربع إنا ما أنتكو قبصدو قلبي دقيسو قلبي أنا قبل عاسي ولا شيء هل ميدان كدينا بس هل ميد بس كدينا يعني تيك توك إني صافت يسط يلما يوعل كوشكتي هاي السوشيال ميديا إيه كنت وين أبولجيس سيسا ما هم دنيو وجيجاسيت كيس تايو وكسبرة هي ما جرتو الله بقى هسمين بسنكا thank you ولا thank you الله دقيسو فيري دقيسو وحوال بوي حلوه الشيء وهرت الدقني ما فهمتي هدي المهاجة iyo hooyada Faaduma adoon dulminin ay u gaftay gar islaana loo yahay Faaduma ana wacaayo waa balan way raali gelinaysaa laakiin wixii qof diyaarada kugu soo daldalo Shakiiro Axmed qeyr Allah siiye u mahadsan yahay marka waxaan ka codsanayaa ina adeeray shukran walaalkay Axmed khayr Shakiira aniga nambarkeeda hay ani kaaga mahay wax walbaba xalin wax walba xalay leeyihiin nafaa la jiraa ina adeer wax walba la isku sameey waxaan waa adduunyo abaay bariyan isku soo baaha karna waa isla dhalan ehelaanahay maanta adduunyan joogna waa isweheshanoona macaantooy ilaahay dartiis in la sugu sabraa wanaagsan ma fahantay marka wax walbana ina xaliyo inta saday tahay Faaduma ku laabana adina waa ku soo waca laakiin ilaahay dartiis ii sabr ii qabsoon caayda jooji abaay macaani caay cadaab bay keenaysa janna ma keenta abaay macaanta garkan ka ayada tiktok imaadootan ilmaheedu waa bilaa aabo ayada hooyadii tiktok keentay ani ilaa hadda meel soo fadhistay ilmaheeda ma aynin absolutely ilmaheeda caay igama mudno ani ilmaheeda habareer baan u ahay waa ilmo yaro sabi ah qof jecel qof nacab ma kala yaqaanaan ani absolutely ani ayadaan cayna ayada tiktok ina imaada ilmahayga caayada laakiin ani ilmaheeda ma cayna ani absolutely Faaduma Buraanbur dhageys walaal Faaduma Buraanbur waali ifyo ilmaheeda kuma caynaay laakiin walaal ilaah baan ku dhibaa walaal iga walaal ilaah baan ku dhaarshay walaal ani naas ma ihde walaal ani wallahi naas ma ihde naasaha laga gooyay ku warka dhaaf ani waxaan soo waca abayan soo waca ayadana anaa wacaayo shushu bay dhigayso shushu abayan naas ma ihde ay inaga xiraada abay sadoo sano meesha ku ganacsanayseen aad ku soo kortay ya naagiro GB ina tagtay jiingad ka furtay ku soo cays adii ma yeelan lahayn abay
aba aniga qabiilkii qansar iyo qaxar kama dhalan si naatan ku hor fadhiso kale aba naasna miya aba aniga may wallahi deganay dhageyso beledku baa beledku shakiira dad wanaagsan iyo hoo deeqsiyay ka timid sax waaye culima diin weheeyo niyaha qaanka caajisayn waa duur ilaahay wato hoo diinta fiidin yaqaan maasha allah adduunyaba ilaah daayimkay ku shubay amiin yaba allow daaha kaaga qaad ciilyanimahankii asliga ahaa raggii madaxtooye iyo maamulkeed yaqiin muslinka kala soocin masaakiinta quudin jiray madaxda absame ayaa ahaa qalbiyey dhalay culima diishiqa hal baan wax walbaba isku nahay marka maxaad rabtaa inaad qabiilka quraanka kugu dhex daraa rabtay naag naasa maaha walaal waxaan ku absamo kuu made yaa iyo waxa gabar sheekhaada reefiq cumara iska dhaleen weeye walaal maxaad ka qaadi kartaa marka aniga ma ihi walaal qabiil baan ku hadal ma fahantay walaal laakiin way ka baxday alla maanta naaski way ka baxday fiiri xagga hadii la tagana martiila hiraab xagga hadii la tagana daarood ismaaciil laandheer walaal ana qabiil u baahan inaan ka hadlo saan ku yeelay alla maanta naaski way ka baxday saan ku yeelay haygo oran naas dadka inaan caayaan haygo oran marka deganay hadalkaa dhays xabiibti ka fiirsa gabadha maaragtay qof adoo u tirqaaca qofkal qalbigaa ka jiro libaaxad waaye naasna ma ahan mar dambe gabadha waxaasaa dhihin walaal dhageysate ayaydeena walaal kuu sheegay ayaydeena waa gabadh reer sheekh saxaaq buuni axmed buuni haashin walaala ciida galaa oo yoonisa ma fahantay ayayday kala hadaan galana gabadh reer saxaaq oo reer cali ah laandheer saa madaxa u taagaya laandheer walaala aniga laakiin qabiil kama hadla laakiin hooyada iyo aabbahay kala ogaan maysaan kee ma aragtay sheekhaar iyo kee ogaadeen kala ogaan maysa waa ku daalaysaan aniga adigana ilmaa waa maaha waan sii baxayaa shakira waxaan usoo koray walaala qaali ayayaaban ku odhanaya hadda kadib ayay baan ku ahay meelaan oga heban ayay kaaga ahay ayayahaaga bateen adiga ku dhaadee xalay waad iga qoslisay horta waan salaamaya walaalaha kur saaran iyo walaalaha hoos joogaba waxaan leeyahay maalin wanaagsan intaan usoo koray horta anaa hadhow toolo odhan doono laakiin waxa aan raba inaan ku dhaha walaala qof caqli badan baad tahay innaba aan caadi ahayn ilaahay caqli iyo caafimaad iyo qurux isku raaciyey maanta wax kaa maqan ma jiro wixii kaa maqan ilaahay oo maarata kheer kulana ilaahay ha ku siiyo adduunkuna toban ma noqdo dadkana perfect ma wada aha marka maqaamkii iyo kursigii aan ku saarnay iyo meeshii aan kaaga baranay noogu soo noqo waan ku jecelnahay walaal qaali oo sharaf mudan oo aad u caqli badan inta kale aan oranayno waxa weeyaan kelmadda naas dhiikar baan ka qaaday anigu intaan meesha joogay naga daaya naas anigu waxaan u arkaa qof jilicsan waan ogahay waxay degan ka wada laakiin degan iyadoo imika iyadu waa qof astaqaarana walaashay laakiin dad kale kugu tumbaraa maya qalbi waxaan ka wadaan fahsamay waxaan ka wadaan rabaa inaan biyaani ii kaadi marka si qalad loo fahmin hal daqiiqan kusoo koobaa abaaye qofka bilaadanka maanta shakiira haddaan isdagaalno oo is affahmi weyno bannaankaasaa ka maraa fiiriya laakiin qofku markuu qof xishoonayo yahay ilaahay ka cabsasho yahay akhlaaqdiisa ilaashanayo tarbiyadda hooyadiisa ilaalinayo walaalo haddaa sanad kasto qofka bilaadanka waxaa lagu dayaa fiiri ilahay dartiisa lagu dayaa muslimnima lagu dayaa eeshna soo wala cunteena lagu dayaa sanad ilaahay keena haddaad qofka ku dhagan tahay dee waxay naas u tahan waxay og tahay waxaan ka wadaa naaska fahayaa waxay og tahay shakiira inay meel soo fadhiisato inay dhilo i dhamas dhehaynin fiiriya dhilo iyo dhamas inay shakiira dhehaynin ee shakiira markay laba jeer inay hadasho rabto ilaahay ka cabsasho iyo shakaraanay og tahay marka waxay tiri ilmaha fiiri ilmaha waxaa jira markay xanaaqaan jarmalka bahal ee farta gelgeliyaana jiro carada ay iskaga baabi'iyaano bobo la yiraahdo farta saas u tataabtaana jiro ma fahan ee maantana riixaan aa jiro marka gabadhaani markay rabto social mediaheedu inuu u kaco ee rabto wallaahi cunugii aan dhalaan ku dhashay sano jiraa ma fahant ka hor is haysteen sanad ilaahay keena way soo hadal qaadee waxaan ka wadaa naas marka gabadhan gabar dhiiqaysanaysa ma ahan gabar inay caysa rabto ma ahan gabar inay meel soo karto dhilay dhamas dhehaysa ma ahan naagtaasina ma daynayso marka naagtaas waxay og tahay shakiiro inay mu'minad tahay naaska waxaan ka wadaa dee shakiiro yacni muu soo jawaabaysa maanta haddii la qarjuufta lata haddi naaska ay baltaa abal caawi burburta khiro leeyahay waa iska macaansi waa iska taabsanaysaa ma daynayso
haddee run sheegayso faaduma fiiri اللهم لك الحمد حتى haddee run ترضى sheegayso faaduma shiirto haddee run sheegayso xamar weyne ii kaadi xamar weyney joogtaaye war 8 bir anaha isoo hadal qaadi caydan بدل walay kaalama بدل hadlin دقح shakiir دقح واضح deganay walay hadda cayda kaalama hadlin walaal fiiri aan 8 maalmood shuushuya ii kaadi shuushu ii kaadi 8 biri waan kaa sii degayaa walaalo intaasun baan kulli kuula soo koray inaan kuna qof aad 8 maalmood wuraya hadal heesaani been ان heesaani شاء الله قلبي سوق دقني ما كنا بعد هي caqliga awalba aad ku socotay imikana yaa nagaa leexsan sidaadii ku soco wadadaadii ku soco ان شاء الله ما والله انا فيري وحان حيريا اك صدح شيء بان هرت حيريا هرت كو الله سبحانه وتعالى بان كبقى oo anu waxa igu soo korisay ma taqaan ayadii bay soo korisay ayadii waxa igu soo korisay ixtiraam inaan qof walba ixtiraamo aniga jigjigaan ku dhashay inta kula ekaaday wallahi magaalada jigjiga gabar iyo gabooye waxa degan ehel iyo qaraabana jigjiga qole aan deganeen male ehel baan wadanay eeda habar yar kulli hadda gabdho waxa jooga magaaladan ka soo guuray walaalo ah oo ma taqaanaayay 18 may xalay ugu lahaa ma noo imanaysaa haddii xaflad la dhigto gabdhahaas dartood xataa wallaahi alcadiim anaga wadankii baa isku naqaanay xataa fiiriya meel walba qolo walbaa degta qolo walbaa joogta jigjiga degan soomaali waa dad wada walaala ah gabar iyo gabooye isku ehela isku eeda wallahi billahi habar yar iyo eedi inaabti ayay baan isku wada ahayn qabiil ma aqoonin wallahi jigjiga inta la eegayay sacuudiga anoo yar baan wallahi cadiim aan garan way abtarkayga waxa soomaali ka ahay oo adeerkaygu ma saasad ku socotay la ima soo baray waxa la baray aniga dhadhiibso waxa la baray anoo yar ma faantay baa 3 jeer quraanka dhameeyay xaafid quraan baa ahay ma faantay tilaawiid tafsiir ma faantay wariga ilaa qofku bini aadan ma jecna xumaanta wax ka sheego ina qofku anu aan kaftan badanahay waxaan doonaa iska sheegaa laakiin anu waxaan iska ilaaliyaa ilaahay gifkaad ka gasho uu ka dhaafaya laakiin kaad bini aadan ka gasho inuu qofku cafiyo mooyee te ka joogmaysid umana lihi faraco aniga raabtiya raa adeerba iyo Soomaalinimaba dumarka Soomaali wada ixtiraam badan inta ugu badan runta marka la sheego Soomaalida dadka fariino ma sino qof xun iyo qof wanaagsan waynu leenahay laakiin wallahi qof kasta waxaan ku dhaafaa markasta waxaan iraahdaa waxaan sira shukriye magacaygana shukri baa leeyahay laakiin marka waan ku duruufaysto markaan shakiirey isu bixiyaan waxoogaa caan noqdo ilbaxay marka aniga waxaan siraa kow hooyada iyo ayaydaada quraanka ku soo bartay awowgay waxaan ku dhig masaajidka ugu weyn jigjiga ku yar ka aha muadin waxaan dhahay cidaada ha ceebeen awowga waa dhintay qabriga jiifa waxaan say ayayda waa dhimatay soo korisay waxaan siraa xumaana ugu geeyna qabriga waxaan siraada yaan ayayda lacaayn aabahay oo dhintay aabahay wuxuu aasay dhowr iyo 30 sano inta aan jiro aasay aabahay markaan anoo bil jiro aabahay dhintay wax yar jiro dhintay waxaan siraa aabaha dambi ha u soo jiidin waxaan siraada hooyadii waa miskiin dambi ha u soo jiidin aniga waxaan ilaashadaa naftayda waxaan siraa qofna dambi eheltaa walaalahay kaftami waayeen maxaan ku dhahay walaalahay midba wuxuu ka shaqeeyaa qayb xuduudka qaybta wajaale iyo Soomaaliland iyo ugu dhaxaysa Itoobiya buu ka shaqeeyaa waxaan isdhahaa wallahi walaalka yaan la odhanin wuu ogyahay inaan live soo galo yaan la dhihin walaal shabac yaal suuqa dadka cayda walaaladii baan siraada wallahi wiil sheekh walaalkii oo maaragtay hooyadii dhashay waa xafidul quraan wuxuu dhigaa madrasad buu ka dhigaa kuliyada arxidma ku taal Sacuudiga ka dhigaa waxaan isdhahaa walaalka yaan la dhici yaal suuqad baa la dhalatay adeeraday oo jaamacadda iimaan ka soo baxay ba wallahi joogo waxaan siraada ya ehelkaaga looga odhan gabadhii ina caraba maanta ka qaylinayso caytamaysa wax badan baa ixtiraama waxaanan ogahay inaan dhiman doono oo aakhir qabri yar inta la igeliyo eel yar 3 mitir laga iman doono su'aasha u horeysa la weydiinana man rabbug inay tahay oo man qabiilku ana meesha oo limba ogahay waxaan ogahay inuu ma aragtay qabiilka iyo magacaaguba uu haraya marka dhimatay naftu ka baxdo oo halka uu xadan intuu ku haro kaliya halka lagu geeyo adiga iyo camalkaaga aad la tagayso waxyaalo badan baan xeeriyaa laakiin wallahi qof bini aadan aan ahay marka qofku ka hari way wala nafta ku keeno mar walba ku soo caayo naftu ku keenaya waxaan idin ka horqayaa inaga waxba sheekada naaqashin aan ku celcelinin waxaan idin ka horqayaa intii naas waxaa tin kun qof wallahi faraha ka qaadaya haday soo cayda xataa dadkii ii soo sheer gareyn jiray codadka ii soo duubiyo idinkuna bilaas hay soo duubina marka meesha baa ku taal cusba lama mariyo bal fiiriyaya marka qofka baa ku taal cusba lama mariyo aniga inta aan la fiir aniga ya ani waxaan ay gabadh muxtaramada baan ahay waxaan ahay gabadh ma taqaanaayay furitaankuna daceeb ma aha markii la soo furay adoo furitaanka xataa way ku soo caysay gabadh reer la baan ahay ma fahamtay allahumma lakal hamdu wax kasta oo iga dhiman ilaahay gacmihiisa ay ku jiraan qof binaadan waxba ima hayo allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ad'uuni wa astajib lakum ilaahay subhanahu wa ta'ala baan bariya cidna ilaahay laga mixigo ilaahay waxa jira wax shar ku ah oo adiga aadan ogeyn laakiin aad raadinayso wixii khayran allah subhanahu wa ta'ala baa ilaahay subhanahu wa ta'ala wax aniga say niyadeyda ay jeceshay allah aniga ha ii yeelo ducadana in la isku duceeyo ducada qaybka iyo ducada xaadirka labada way fiicanta la isku duceeyo bini aadan baana wala isku duceeyaa oo qof walba oo mu'min ah oo adduun korkiisa ku nool ilaahay subhanahu wa ta'ala muraadkiisa allah u sakhiro
كي الملان الماء الله سيو كي مات الميسكو مقي الماء الله وسعليه كو الموكم بك الله وعافيه كي والد كي دنت الله ونحرسته كو والد كي ونولي هنا الله ودايو كل جنب إلى اللهم حسن الخاتمة إنك قد ساودنا هاي والله ويسك الدين وحبك ترسل معي لكن ولا ريالو قبل داس معركتين سومالي باتين كل جين وحنا تعيشين تقول بالدنيا ولا ريالو قبل داس أنا والدنيا والله واحدة من قصة قادم معي يدو إن أمان هاي تيسو سناب شات ويجا عايسة ميلو بيتهم برا عايسة واسكش قايسة ورجع عير مقاضني والله شكر عبد ويتقانا شكر عبد قبل أنا هبرير أو أهمي المديرين أو جوري كذا أسكون من هذا كار والله كريمان اسك إيبيا قبل أحاسك على دان تكرر اللي بان كذا كننا لا يسكو عاتيان إيبيا شامبوين هير برودكت بان كذا واسكش قايسة هالكاس كصفر استحرابي الشاكة أصاب قلا قرح عندنا معايا قبيل بان عاين ولقي أنا قبيل كهله عندنا إمام مقالنا قلا أصلا أهي إله ما فهمتي أنا أقول شكر هاس ما اسكون قانا وحنا هاي شكر وقتي أنا شكر أنا قلا أنا هنا وقتي وحي هو يدي تهبي وقتي ميال بحكوا صوت عنا وأصلا سيحنا وقتي شكري لكن أنا أقول حنا هاي بقلال قفة ogaha abaayo hadalkaaga qiimaha badan فريست أنا قبيل كفان أنا جاي معيار ما إرادو إن معامد مردك سدو بحان كورا قبيل كاسنا مكفانا أنا أقول حنا هاي دقيسو أنا إسقوا ما فهمتي وحنا أنا إسقوا ولا لي أمام بانك لا هاي وحكست يقول صاع عيسى كلمة ده أنا عن دبصدي بس وحياتها ما كان يقول قبل ما بعتها هذا يجلس هذا ويد تين إتكداي ولا لي يا مخراتي مكتين قبل أنا العفية مرة من حتى دقيسة يا والله إذا قدرتين حرمة وعن شو هوي اللايف مي مقاشان قبلنا waxa ugu qoran iisuga akhriye magaceeda u kaad walaal beelay farta xaajiba gabadhana ugu qoran ugaaso jamaad kunkaroon intaas oo qof oo siiba number 1 xurmo wacan wallahi dartiin ba ku deynaya hatta waxaan rabay maalinta yoom qiyaame ee la qatan yahay la qaawan yahay ina cafiye marabin fiiriya dhagina may maqashin qofna igu soo falanqayn sheekada wala ina cafiye marabin waxaan rabay maxkamadda aakhire inta la fuulo oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala garsoore ka yahay malaa'igtuna ay ka yihiin shuhuud ya dadka oo maartay ma aha adduun lagu naaqushay qabiil iyo lacag hoos la iska siinay iyo waxa ma aha aniga ixtiraam iyo qadarin baa la igu soo koriyay ma fahantay waxa la igu soo koriyay ummadda Soomaaliya waa walaalada habreer iyo eedii habreer iyo qaraaba la igu soo koriyay ixtiraam ma fahantay aniga dadka aan ka dhashay kulli ma wada dhahayo laakiin sa aniga familkayga hooyada aan waxaan ka hadlayaa hooyada iyo aabahay iyo reerkayga aniga ay dhalay baan ka hadlayaa احترام يا قدرين كله وضع حافظ القرآن ناك تيك توك تبيت بس شيء ساي ناك حتى كريجة ما أصفرت وأنا كريجة غير كيجا وأنا كلها هذي بس ويا أبهاي والله العظيمة ولا ريالو إلهي سبحانه وتعالى مربك يا ومانا خميسة فيريا ومانا خميسات وحق والله يقول بالله قبل أمام بسينيا حتى إن العفية مربين وحان دوني يوما محبوسا قم ضريرة أمركم إلهي ما أنت يوم القيامة بنك اللي يمادو نول بعمل كيس وكأردي يقف كي هو يدي كأردي كي كأردي يقف كي لعقلها وحان دوني كلمة أي مدلستي كتر فاهم برامبو إن لكنا دوني والله محكمة آخرة لكن درتي ما برامبو إن لكنا دوني والله محكمة آخرة لكن درتي ما qofka isagu wax dulminaya ama qofka wax caynaya hay bugaagta psychology haddaad akhrido ama qofka caafimaadka walaalay macaanay inta sheekada inaga xidhan gabadhaas gabadha way cafideen aba shatiir way murmud kun iyo boqol naga yar aamusa maanta dhaban idinka aamusanayne kun iyo boqol qof baa tihiin ilaahay baa idinku dhaashay faatixada walaal u mara shagiri way ooyday hadir waan dareensanahay falanqan inaga joojiya hala soo xiro iidaaba dhahdayaan la falanqaynin anaa ilaahay dartiis fiira ah u duceyna marka ilaahay waxaa waaye wada gashaan in yar faatixada anu wada marno maasha allah waa umreynaa aqri inta meesha fiidfaysiinta ku jirto marka dhamaysaana nabiga ku saliya alayhi salaatu wasalaam alayhi salaatu wasalaam mir shakire walaalo wax odhanayaa shakire walaalo ilaahay horta ha ku karaamay ha ku sharfo wallaahi waad oyday waan ogahay cafisku wuu adag yahay weyninka kaaga sheekeyey qisadeydii markaan kuu imi shakirey sidaa aad u cafisay ilaahay raxmaanka ah ha ku cafiyo dembigaaga ha dhaafo maalinta aakhirana fijanna kuwa jannada gala ee ummadda markay cafiyaan maanta waa khamiis waa maalintii cafiska shakiire la qaadayay shakiiray waxaad shaqaysatay ajar walaalo ilaahay subxaana wa tacaala maanta waa khamiis oo maalintii cafiska la qaadayaad cafis bixisay
saliin baa tahay intaa 7 sano wixii qalbigaaga ku weynaad maanta uu idad ilaahay darti u cafisay ilaahay waxaan kaaga baray waxaad jeceshaa Allah ku siiyo sida annagana noo maaragtay noo maqashay ilaahay waxaan kaaga baraya maaragtay walaalo inuu ku sharfo ku karaameeyo jazaaka Allah khayr ku leeyahay shakiiray bacdamood cafisay anna gabadha aan kuu sheegay ilaahay darti cafiska adigu aad fidisay mid la mid ah baan ilaahay darteed u cafinay aanan xitaa mar dambe habaarin waan habaari jiray waliba anigu shakiiray ma maqlaysaa ma cafisa gabadhii ilaahay dhammaantiin habaari maayo waan habaari jiray maanta laga bilaabo khamiisa dub u habaari maayo shakiiray cafiska aad walaasha u fidisay mid la mid aan u fidiyay anigu waliba waa habaari jiray habaarka waa ka joojiyay jazaaka Allah khayr baan ku leeyahay ilaahay waa ogyahay qalbigayga maanta laga bilaabo inaanan habaaraynin bas ilaahayna waxaan ka barayaa qof kastoo qalbigiisa wax ku haya oo maanta qalbigiisa qof dhaawacay ama qalbigiisa qof kubay ama qalbigiisa ololayo maanta waa khamiis kunka qofee daawanaya aynu wada cafino qof kastoo qalbigeena gubay ama aan caloosha wax ugu hayno ilaahay sidoo inagana inoogu naxariisto inuu cafiyo ilaahay markaan dembi galno ilaahay baan u tagnaa markaan wax weyno ilaahay baan weydiisanaa ilaahay baan ku cararnaa si ilaahay waxaan doonayno inoogu aqbalo oo ilaahay dembiyadeenna u cafiyo maanta qof kastoo kunkaa qofow sida shakiir wuxuu cafisay aniguna aanu cafiyey ilaahay dartii ku cafiya jazaaka Allah khayr shakiire walaalo khayr badan Allah ku siiyo ilaahay ha ku karaameeyo dhammaantiina cafis ya saamax adduuniya aakhiro والله درتي باكو عفي عفي أنا إلى أجر قصي خير قبل آمين ilaahay shaqaan rabaa inaan galo hal mar inaan diyaar rabaa maxaanay hal mar inaan عليكم السلام جماعة ودو قال hal mar isiiya shaqaan geli rabaa waa idinka baxayaa ودو سدو shakiiray waxaan usoo qabsaday maasha Allah adigu baaba sheegaba maasha Allah waxaad tahay masaba duriyad xalaala qof akhlaaq lagu soo kori intaadan iska faalaynin waxaan usoo qabsaday usoo koray inaan sheego waxaad adiga tahay wallaahi hadda marka aad shaka sheekaysay inta aan dhihi rabo un baan dhahday qof walba wuxuu example bixiyaa guriga oo kasoo baxay haddii aad caytanto ama qofkan aad tahay hooyadii kusoo korisay iyo gurigaadii baa caysa wallaahi anisa aan aaminsanahay صح wuu garami karaa wuu hadli karaa waxaana laga halay wuu dhihi karaa wuu andaco karaa laakiin qof akhlaaq xun baa caytanto صح hadallada afkiisa aanan xisaabinin qofka bini aadamka ahna inuu koraa la rabaa sanadkii hore siduu ahaa inuu kasii fiicnaadaa la rabaa maayo inuu kasii xumaado maaha صحيح marka gabadhaas aniga sii falaqayn maayo mana ugalaayo ما maayo يمكن maasha Allah si fiicanaad samaysay duriyad xalaala oo nasabaad tahay qof ahlu diina baa tahay waxaana ilaahay kaaga baryayaa afkayga in lagu jiraa laga yaabaa waxaa ilaahay kaaga baryayaa biidnillaahi kariim ilaahay wuu kuu dhamaystiray ilaahay maasha Allah nimcuu ku siiyo qurux buu ku